maanta waxaan joognaa Seychelles oo ciyaarihii dhalinyarada toddobada wadan ee ka tirsan badahani saaxiibku waa kuma la saaxiibku waa kuma. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa walaalkiin Xamse Cusmaan oo ilaah ku soo dhawaada Jiib Ranan oo ugu talagalnay orodyahanada Soomaaliyeed khaasatan orodyahanada reer Jabuuti oo aan ka bilownay xalaqadaheenan maanta anagoo ka soo daafurnay xalaqadeennii shalay toole ahayd 30 maalin iyo 30 orodyahan hal maalin iyo hal ciyaaryahan ama haddaan u dhigno hal maalin iyo hal orodyahan. xalaqadeennii hore inagoo ka daba tagayna waxaan ku soo qaadanay orodyahankii weynaa Xuseen Axmed Saalax oo ahaa asaasihii amba calinsadihii Jabuuti ee ugu horeeyay ee caalamka kor ka taaga calan qamiisa ee ku guuleysta orodka marathonka ee ka soo qaada Olombikada. xalaqadeennan maanta anagoo ka hadlayna xalaqadeennii labaad ay noqon doonto anagoo ugu magac darnay xalaqadeennii 30 maalmood iyo 30 orodyahan 30 maalmood iyo 30 orodyahan hal maalin iyo hal orodyahan. halkan maalin oo ah xalaqadeennii labaad orodyahankeegu noqonaya orodyahankan ku soo qaadanayno maanta waxaan ku soo qaadan doonaa orodyahankii labaad ee kaga hadlayno xalaqadeennan. orodyahankaasi kuma noqon doonaa waa su'aasha muhiim isweydiinta mudan waxa weeye maanta waxaynu ka hadlaynaa haliyey ka mid ah orodyahanadii hore ee Jamhuuriyadda Jabuuti oo lagu magacaabo Roble Jaamac. Roble Jaamac wuxuu ku dhashay sanadkii 1958 dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. nooca tartankiisu waxay ahaayeen marathon. haddii aan sheegno kooda athletics wuxuu ahaa 143.4664 wuxuu ahaa orodyahanadii ugu caansanaa amba orodyahanadii ugu wanaagsanaa waqtiyadii 80maadkii orodadii waxa lagu yaqaanaa Hiroshima ay orodyahanada reer Jabuuti isdaba taageen. haddaan waxaan u kala qaaday 3-4 qaybood baan u kala qaadi doonaa haddii Ilaahay idmo. qaybta ugu horeysa waxaan ka dhignay waqtigii bilowgiisa orodka. waqtigii Jabuuti waqtiga orodka bilaabay Jabuuti mayna lahayn kaabayaal sporti oo xoogan mana jirin fursado badan oo tababar heer sare ah. laakiin Roble Jaamac wuxuu ahaa hal shay oo ka muhiimsan dhammaan oo ahaa rabitaan iyo adkaysi. marathonku waa tartan u baahan dulqaad maskax adag iyo jir u diyaarsan. marathonku marka la qiyaaso kiiloogiisu wuxuu noqonayaa 42 kiilo 195 kilometer oo orodkiisu. Roble Jaamac wuxuu si gaar ah ugu takhasusay marathonka taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah orodyahanadii ugu horeeyay ee Jabuuti ee ku matala masaafada dheer. qaybtaas waa qaybtii ugu horeysay ee hordhac ahayd. matalaadda qaranka ayaan qaybtiisii labaad ka dhigay. marka Roble Jaamac waxa uu galay tartamadii caalamiga ahaa. waxa uu noqday astaan muujisa in Jabuuti ay ka soo muuqan karto masraxa orodka adduunka. waqti adag ayuu ku tartamay xilli adag dalalka bariga Afrika sida Itoobiya, Kenya si weyn uga xoog badnayd orodka dheer. si kastaba ha ahaatee Roble Jaamac ma niyad jabin. waxa uu orday dalkiisa isagoo sharaftiisa iyo sharafta calanka labadaba kor u qaadaya. orodyahanada sida Roble Jaamac ayaa dhidibada u adkaaday dhidibada u taagay jiilasha dambe ee orodyahanada Jabuuti kuwaas oo maanta ku tartama heer caalami. qaybtaasi waa qaybtii labaad. waxaan u gudbaynaa qaybta saddexaad oo ugu magac daray saameyntiisa iyo dhaxalkiisa. inkastoo macluumaad badan oo ku saabsan tartamadiisa aan si ballaaran loo diiwaangelin haddana Roble Jaamac waxa uu ka mid yahay magacyada lagu xuso marka laga hadlayo taariikhda orodka Jabuuti. wuxuu tusaale u yahay in adkaysi guul horseedo
in waddan yar uu soo saari karo halyeeyada caalamka, in jiil kasta uu leeyahay qof jidka u xaadha oo u nadiifiya. Maanta marka aan aragno orodyahanno Jabuuti ah oo ka qayb galaya maaratanka waaweyn, waa inaan xasuusanaa raggii jidkan hore u furay. Robert Jaamac waxa uu ka mid ahaa ragga. Anigoo soo gunaanadaya, jecel inaad ila socotiin xalqadaheena saddexaad, jecel in aan bodakasti wada yeelano orodyahanadeenii hore ee reer Jabuuti. Gunaanad kaygu waxa uu noqonayaa Robert Jaamac ma ahayn oo keliya orodyahan maaratan, waa astaan taariikh ah oo matalaysa bilowga safarka dheer ee orodka Jabuuti. Haddii aad xiisaynayso taariikhda orodyahanada Jabuuti iyo halyeeyada Afrika, la soco taxanayaasheena isdabayaal ee ugu magac darnay 30 maalmood 30 ciyaaryahan, hal maalin hal orodyahan, hal maalin hal halyeey. Waxaan leeyahay habeen wacan oo wanaagsan. Waa inta habeennimo u tahay, intay subax u tahayna maalin wacan oo wanaagsan. Idaylaba waxaad sugtaan waa xalaqadeena saddexaad. Waxaad kamootigan uga soo wadaagtaan orodyahanka noqon kara xalaqadeena saddexaad aan ku soo qaadanayno. Nabadiinu nooli koontee isarag dambo xiisa leh. Dhammaantiin waa Jiib Runner oo inaba meel dheer wayna gaarsiisaan.